بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waa mar kale barnaamijkeena ku saabsan Microsoft SQL Server. maanta waxaan baran doonaa sida loo create gareeyo table cusub. marka hore waynu soo kicino SQL Server-kii. hore waxaynu soo samaysanay database loo yaqaano markaas AbdiDB. tables haddii aan si kala furno waxaa ku jira labada table. marka labada table hadda waynu markaas delete garan doonaa sidaan inagu qaar kale oo cusub hadduu sameyno. right click baad leedahay, delete. okay, kan kalena right click, delete, isna okay baad siinaysaa. waayahay, markaasaan hore usoo sheegnay wax shaqo kastoo laga qabanayo SQL Server waxaa la adeegsanayaa labadii hab, ama in la adeegsado markaasi GUI-gii ama in query lagu qoro. waxaan ku horeyn doonaa markaa habka GUI-ga. waxaanu soo kala furanaa guud ahaan folderka guud ee loo yaqaano databases. markaad databases soo kala furto, halkan waxaa soo furmay dhammaan databaseda ka create garaysan SQL Server-kaaga, ha noqdaan system databases ama ha noqdaan markaasi qaar user and created databases. databasekan oo ah databasekeenu markaasi casharka ku tusaaleynay ayaynu soo kala furaynaa. markaad databaseka soo kala furto, folderka loo yaqaano tables ayaad right click ku dhufanaysaa. waxaad ka dooranaysaa markaa new table. waayahay, wuu inoo soo saaray saddexdan column markaa inoo soo baxay. column-kan ugu horeeya ee loo yaqaano markaa column name, isaga waxaa lagu taxayaa ama aad ku qoraysaa dhammaan columns-kii uu ka koobnaan lahaa markaasi table-kaaga. tusaale ahaan haddii aanu idhaahno ID oo kale, waxaynu usoo gudbi doonaa column-kan labaad oo loo yaqaano data type. data type wax kale maaha, column-kan ID la yidhaahdo daatada data type akhri waa maxay. marka la macnay data type waa nooca daatada ama value-ga uu hayn doono column-kan ID-gu. marka maadaama ID yahay, waxaanu ka dhigi doonaa integer oo ah number. column-kan kale soo gudub oo loo yaqaano allownal. allownal wax kale maaha, column-kan ID isagoo bannaan miyaa laga tegi karaa. haddaad doonayso isagoo bannaan in laska dhaafi karo, saxaad saaraysaa, haddii kalena waad ka qaadaysa. waay, haddana column-kii labaad ayaad qoraysaa. markaad column-kii labaad qorto, sidii oo kale kii hore isla wadaan data samayso. maadaama name yahay, wuxuu noqon doonaa varchar oo ah characters ama qoraalka. varchar baa loo isticmaalaa. content-ka bracket ku jira wax kale maaha, ugu badnaan imisa xaraf maximum length-ka uu qaadi karaa waa imisa. content baa hadda waad ka badin kartaa, waad ka yareyn kartaa, 100 badhe isagoo bannaanaha laga tegi karo. haye, column-kii saddexaad address baynu qornay, isna baynu siinay markaas data type varchar maadaama qoraal yahay, 500 badhe isagoo bannaanaha laga tegi karo. intaa markaan sameyno, columns waad sii kordhin kartaa, intaad ka dhigi kartaa. save baad leedahay. markaa save markaad tidhaahdo, halkan yar baa kusoo bixi doonta oo aad markaa table-kaaga magaca uga bixinayso. table-kaagaad magaca uga bixinaysa. okay baad leedahay. markaa halkan waad iska xidhi doontaa, close. inka markaad soo kala furto database-kaagii, aad sii kala furto folderka loo yaqaano tables, waxaad ugu tegi doontaa table-kaagii loo yaqaanay registration. aad right click siiso oo tiraahdo design ka doorato, wuxuu ku geyn doonaa halkii aad markii hore kasoo create garaysay aad columns-ka markaas kasoo samayso. waa saddexdii column, integer, varchar iyo weliba allownal, intii aad saartay intii aanad saarinba. waay, table baynu sameynaa markaa inagoo isticmaalayna GUI. waxaynu haddana sameyn doonaa table inagoo markaasi isticmaalayna query. halkaas ay ku qoran tahay new query ayaynu ku dul dhufanaynaa. halkan
warqadan xaashi cad bay noo soo bixi doontaa. marka halkan baynu query ku qori doonaa. way querygan baynu qornay create banner. create waa inaga hore usoo aragnay oo create waxaa la isticmaalaa mar kasta oo object aan hore u jeer la create garaynayo ama la sameynayo ayaa la isticmaalaa kelmadan create. marka create waxaa ka dambeynaysa marka objectgaad wixii aad sameynaysay. create markaad tidhaahdo hore waxaynu soo aragnay jirnaa create database, haddana database name kimka waxaan leenahay create table samee, haddana table name tableka magacaa la samee. marka bracket baad furaysaa, halkan waxaad u taxaysaa uun columnskii uu yeelan lahaa markaasi tablekaagu. waxaynu ruuxa ugu horeeya columnka loo yaqaano id, data type baa ku xigay, data typekuna ha ahaado integer. halkana waa maxay? waa not null ayaynu halkii inagoo saxa ka qaadnay u dhiganta. halkii markii dhada g-ga isticmaalinay meeshaan saxa ka qaadnay iyo not null ood query ku qortaa waa isku mid. columnkan labaad waxaynu waa varchar, waxaan u jeedaa waa name, data typekiisu waa varchar, maximum lengthka uu qaadi karaana waa 100 xaraf. marka kan not null iyo null waxba minaan raacinin, haddaynan waxba raacinin waxay ka dhiganta null ha ahaado oo isagoo bannaan ha laga tegi karo. address baa columnka saddexaad ah oo isna varchar ah, maximum lengthkiisuna waa 200 xaraf, null weeyaan. date oo isna data typekiisu yahay date time ayaynu qornay. marka kuwan marba column kasta markaynu qornay hakad baynu markaas ka dambeysinay. kan u dambeeya kan ugu dambeeya markaasi hakad lama dhigo xaggiisa dambe. waad haylaad garanaysaa markaa querygaaga execute baa leh, saas ayuu ku samey. halkan weli muu soo geli markaa database-kaaga right click si refresh, hadda soo geli doonaa. okay hadaad right click tiraahdo oo designkiisa tagto wuxuu ku tusi doonaa halkii aad markii ugu horreysay kasoo create garaysay markaasi. id integer oo inagii not null nidhi saxu ka qaaday, name oo varchar 100 baynu nidhi halkan sax u saaray maadaama inaan waxba sheegin null buu qaadanay. addressna waa lamid, datena waa lamid. markaas waayo sidee data loo gelinaya markaa tablekii aad samaysatay. table baad samaysatay, tableka waxaa loo isticmaalaa in data la geliyo. markaas sideen data u gelinayna habkii g-aygan ku horreyn doonaa. tablekaad doonaysa inaad markaasi daatada geliso ayaad ku dulfan doontaa right click, waxaad tegaysaa edit top 200 design maaha, design waa halkii aad marka hore kasoo create garaysay. oo inu arki doonaa waxaa la isticmaalaa marka tablekaaga structurekiisa wax laga bedelayo, markaas column lagu darayo ama column data typekiisa la bedelayo, waxyaabahaasaa la isticmaalaa. laakiin markaad doonaysa inaad data geliso tablekaaga waxaa la doortaa edit top 200. okay waa columnskii maran buu hadda leeyahay id, name iyo address. null way maran yihiin weeyaan. marka dataynu gelin doonaa. sax waa inoo qaatay id number 1 baan gelinay, namekina magacaasaan gelinay, addresskina markaasi magaaladaasaynu gelinay. markii dhaweyd aynu markaas create garinay tablekan waxaan nidhi columnka loo yaqaano id isagoo bannaan oo null ah ayaan laga tegin. marka waxaan samayn doonaa bal wayn ka budi doonaa. waayahay xaggan dada isaga soo gudub error buu keenaya. marka waxaa la akhriyaa error messageka wuxuu ku leeyahay cannot insert the null value. null value ama qiimo madhan ma gelin karo columnka loo yaqaano id. marka wuu inaga diidi doonaa.
waxaa markaa khasaba inaynu markaasi value ama qiimo gelin. kuwan kale maadaama aynu iyagoo bannaan laga tegi karo iyagoo ka tegi karnaa, bal aynu eegno. iskaga badnaa nameka magaalada ma sheegina ama waxaynu iska boodi doonaa adresska. iskaga boodnaa adresska waxba inaguma qabsan nal isagoo ah iskaga tegay kii saddexaad kii afraad u gudbiyay. marka haddii aad sax saartana markaa isagoo nal ahba laga tegi karaa, haddii aad ka qaadana lagama tegi karo. waaye waxaa inoogu xiga markaas table data loo geliyo anagoo isticmaalayna query baad ku dhufan doontaa, warqadii cadad bay noo soo bixi doontaa. marka halkan si aad u aragto tablekaaga markaa columnsku ka kooban yahay waxaa la qoraa querygan soo socda. tablekeena waa kan wuxuu ka kooban yahay afartaa column midna waxba kuma jiraan sababtoo waxba maynaan gelinin weli. waaye markaad data gelinayso querygan soo socda ayaad qori doontaa. waayo querygan baan markaa qornay, waxaanu ihi insert into, waxaad data gelisaa tableka loo yaqaana fee. markaad qorto intaas halkan waxaad ku sixi doontaa liiskii columnyadii uu ka koobnaa tablekaaga. waa kuwan id, name, address iyo date. marka waxaan leenahay id, name, address iyo date waa columnska ka koobnaa markaa tablekeen. values qiimayaasha markaasi la gelin lahaa tablekeena waxaanu idhi sida markaasi columnsku kusoo kala horeeyaan ayaa valueskan loo soo kala horreysan. id baa kusoo horeeya id number 1 bay siina, name raaga cumar, addresska, dateka. marka siday usoo kala horeeyaan markaas columnsku ayaa valueskana loo soo kala horreysiinaya. marka iminka idga 1 baynu qornay, 1 sidiisaa isaga taagan oon waxba ku jirin baynu qornay, laakiin kuwan kale oo dhan single quotation ama calaamadaha yar baynu hareeraha ka marinay. wax kale maaha wixii integer iyo adigu wixii far character string waxyaabahan loo yaqaan qoraalka oo dhan, wixii qoraala oo dhan, magac ha ahaado, meel magaceed, wixii qoraala oo dhan markaad doonayso inaad query ku qorto labada calaamadood baa dhinacyada laga mariya iyo wixii date ah. date iyo wixii qoraalaba labada calaamadood baa dhinacyada laga mariya. laakiin hadduu number yahay, binary hadduu yahay, hadduu money yahay, waxyaabaha dhinac waxba lagama mariyo markaas data. waayo markaa querygan aynu highlight garayno insert into fee columnyadu waa kuwa valueska qiimasha la gelin lahaa execute baan leenahay. marka aynu querygan sare kicin oo aynu tusayay waxa ku jira markaa tablekeenii. waxaa querygii iminka ama datadan hadda gelina baa ku jirta 1 magacaas marka addresskaas iyo dateka. halkan intoda waa laga tegi karaa. waxaa kaloo laga tegi karaa haddaad doonaysa inaad dhammaan tablekaaga columnyadu tablekaaga ka kooban yahay aad dhammaan wax geliso oo dhan. salaan tablekan wuxuu ka kooban yahay 4 column oo dhan. 4 column baa haddaynu doonayna inaan wax gelino markaa lagagama baahna inaad taxdo columnska oo laskaga tagaa. insert into fee melody insert fee ama insert into fee valueskii then si columns kusoo kala horreeyeen waad garanaysaa ayuunbaa loo soo kala horreysay valueska. then bal aynu qof labaad gelino. waay
maadaama tablekeena wax gelinayno markaa laynagama baahna inaan taxno columnskii queryga intaas kusoo gaabsanay execute baan leenahay sax aan hadda waxaa querygaas sare eegno sayno aragna waxay ku jira ka laba Ismaaciil Guleed addresskii iyo weliba datekii maynaan sheegin columnska maadaama tablekeena wax gelinayno lagagama baahna inaad sheegto markaasi number of columnska uu leeyahay tableka maanta inta casharka inoogu joogo casharkan casharka xiga markaas waxaan ku baran doonaa sida tablekii aad samaysay structurekiisa wax looga bedelo ha noqdo markaas column cusub oo lagu darayo ama column laga saarayo waxyaabo badan baan ka qaban doonaa inta ka horeysa waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum.